dambeeyay wada runtii wasaaradda faafinta waxaa ku sugan shaqaalo part-time oo shaqaale suga ah qaarkood sida hore idinku sheegay 6 sano joogeen 7 sano 4 sano 5 sano qaar waxay joogeen dawladdan hadda oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano joogeen intaas waxay sugayeen shaqaalanimo riski u galeen qaarkood guryahooda tagi waayeen qaarkood ilmahooda isma arkaan intaas marka shaqaale sugayeen tirkoob ay yimid oo bangiga adduunka shaqaalaha rayidka xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha tirkoob la sameeyay jiray oo dadkaas la tirkoobay waxaana la sheegay dadkii shaqada iskaga tagay in lagu bedeli doono wasaaradda shaqadii shaqaale amarkaas uu ka soo baxay inaan shaqaale la qaadan karin ra'iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre ayaa amar wuxuu ku soo saaray dadka intaas part-time-ka ah in la qaato wixii soo haray kadib dadka loo qeybiyo laakiin hadda wixii oo dhan waa laga baxay annagoo taagan oo intaasoo sano taagneen oo riski badan u galnay oo shaqadeena wadana sabrayna ayaa sida wararka ay sheegayaan oo qaarkood xafiiska shaqadii shaqaalaha lagu arkay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed inta uu kusmaa ahaa ayuu wuxuu sameeyey boosaskaasi bannaanaa oo dadkan intaasoo sano shaqaynaya loo diyaariyey ayuu hal mar inuu kala wareegay oo dad markaasi asaga u wato uu keensaday oo qaarkood gobollada dalka ma jeclina afka ku dhifto oo xaafadihiis uu ka keenay markaasuu qortay dadkii boosaska lagu bedelay dadkii intaasoo soo sano soo shaqaynaya oo qaarkood soon ahaa qaarkood raadi muqdisho ahaa qaarkood tv-ga ahaa qaarkood dhinaca maamulka ahaa dhammaantood bannaanka in lagu dhigay ayay weli baarteenkooda taagan yihiin qaarkood weli guryahooda u hooye laayihin weli ilmahooda ay laayihin shaqada ay u taagan yihiin ay wadaan laakiin hal mara waxaa ka soo dhex booday in markaas ra'iisul wasaare ku-xigeenka 30 inuu hal mar wasaaradda keeno qaarkood waxaa ku arkaya aydii dhaqanaa la bara ayagoo laayo qolada waa beri loo gudbiyey marka aawe cadaaladii aawe musuq maasuq lala dagaalamayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii hore ra'iisul wasaaraha ee dhinaca shaqaalaha waa kuwa dadkeedu bishaaraadkooda meel saari jirtay hadda markaa madaxweyne noqotana sidoo kale ballanqaadkii ahaa dadkii soo shaqeeyey lacag la'aanta ku soo shaqeeyey dhib iyo rafaadku soo maray oo ilaa iyo guddiyadaas bangiga adduunka iyo guddiga shaqaalaha iyo xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha ay jeegareeyeen oo tirkoobka maray ee aad loo ballan qaaday in shaqaale ay noqdaan madaxweyne maanta xuquuqdooda way waayeen madaxweyne waxaan kaa codsaynaa arrintan dhowr mara ka hadalnay in arrintan aad wax ka qabato haddii marka dowladnimadana ay tahay in laysku taagsadana waa gooni laakiin annaga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kalsooniya kugu qabnay dhinaca shaqaalaha xuquuqdooda ilaa haddana waa kugu qabnaa fadlan inta doorashada aan la aadin madaxweyne arrintaa wax ka qabo dhowr jeer aan laysku dayay bannaanbaxay in la qabto u kaadiya xuquuqdiina oo lagu maqan yahay allah ilaa hadda siday dadka u dhiban yihiin dadka wax u qabo madaxweyne ra'iisul wasaare ku-xigeenkan waxaa leenahay soomaali waa soomaali ha kala saarin kanna waa saaxiibkay kanna waa qaraabaday kanna soomaali weyn oo ka mid yahay isna iska dayso mas-uul saroo dowladdaa tahay dadka cadaalad ku dhaq waa mahadsantihiin